right class markaynu abuuranayno class baynu ku bilaabanaa kelmadda la yidhaahdo kadibna waxaan sheegi doonaa tusaale ahaan magaca classkayga class baan samaystay la yidhaahdo morning kadibna gudaha classkayga waxaan idhi waxaad ii samayn doontaa constructor seenu samaynana dhif baynu idhaahnaa kadibna laba underscore kuwa shift iyo minus ayn mar qabanay mar labaadna ayn raacinay laba jeer markay noo noqoto waxaan raacinaa init bayn raacinaa kadibna waxaan sheegi doonaa functionkeenan xogta uu soo celin doono kadibna waxaan leenahay initkaygu wuxuu noo qaban doonaa kow wuxuu soo celin doonaa self waxa isaga laftarkiisa ku jira mar labaadna wuxuu noo soo celinayaa bayn idhi name iyo tusaale ahaan oo kale h buu ii soo celinayaa waxaan idhi wuxuu ii soo celin doonaa name iyo h ayuu ii celinayaa constructorkayga kadibna waxaan sheegnaa si aynu kelmadahan u qeexno self bayn sheegi doonaa waxa name noogu jira wuxuu noo leekaanayaa bayn idhi tusaale ahaan waxaa noogu jira name sidoo kale waxaa noogu jira h kuna wuxuu noo leekaan doonaa waxaa inoogu jira h buu leekaan karaa marka kelmadda tan hore waan bedeli karaa kan hore barometerka aan u bixinayo waan bedeli karaa magac kale aan ula bixi karaya tusaale ahaan oo kale nameka waxaan leeyahay waxaad iigu bixisaa magac h-kana waxaad iigu bixin doontaa ad iigu turjumi doontaa maxay da-baad iigu turjumi doontaa laakiin inta badan waxaan iska doorbidi doonaa in sidiisa aynu ku isticmaalno oo foreign language-kaa iskaga isticmaalno intan haddayn samaysanay qaybtan waxaa la yidhaahdaa bayn nidhi constructor waa dhiseheena markayn samaynay si aynu xogteena usoo daabacno waxaynu u baahanay inaan samaysano object si aynu u samaysano waxaynu sheegi doonaa variable yar kadibna waxaan odhan doonaa waxaad ii samaysaa tusaale ahaan student kaygu wuxuu ku biiri doonaa classka la yidhaahdo maxay morning buu igu biirayaa kadibna tusaale ahaan ardaygayga magaciisa waxa la yidhaha maxay maxamed baa la yidhaahdaa h-kiisana sample waxaan soo qaatay inuu 20 yahay si aynu usoo daabacno daabacaad maadaama inay meeshuu ku jirin print waxaan odhan doonaa waxaad noo soo daabacdaa waxaa noogu jira maxay studentigayaga ardaygayaga print waxaan leenahay waxaad noogu soo daabici doontaa waxaa ku jira objectigeena sarayn samaysanay la yidhaahdo maxay student1 kadibna ardayga magaciisa haddaynu u baahanay keliya waxaan odhan doonaa waxaad noo soo daabacaysaa maxay magaciisa haddaynu u baahanay h-kiisana waxaan odhan doonaa waxaad noo soo daabacaysaan h-kiisa control plus j haddaynu idhaahno xogtii hore meesha ku jirtayna clear aan idhaahdo iisoo daabac oo faylka magaciisa u yeedho python kadibna aan idhaahdo waxaad igu yeedhaysaa oop.py waxa iisoo bixi doona xog sidana ardaygayga magaciisa waxaa la yidhaha maxay maxamed baa la yidhaha mar hadduu maxamed ina soo gaadhay mar labaad waxaan odhan karnaa magaciisoo quraata uma baahdin waxaan u baahannahay studentigayga marka la joogo ama objectigayga waxaan u baahanay waxa ku jira maxay h baynu u baahanay marka h-keena haddayn soo daabacno isagana inaa soo daabac waxay noo soo baxay maxay maxamed iyo maxay 20 ayaa inoo soo baxay marka statementigeenan wuxuu inoo soo saarayaa xogteennan objectiga ku jirta ayaa halkan laynooga soo daabacayaa arday labaad haddaynu u baahanno halkan un baynu copy ka samaysan doonaa ardaygeenuna wuxuu noqon doonaa student2 magaciisuna wuxuu noqon doonaa tusaale ahaan xamda da-deena waxaan odhan doonaa 18 ama 19 haddaan markaa iyadana soo daabacayo xogteeda mar labaad halkan aynu iman doonaa kadibna waxaan odhan doonaa waxaad noo soo daabacdaa student2 namekiisa iyo student2 h-kiisa noo soo daabac haddaynu idhaahno xogteeda hadna la tuso aynu halkan uga yeedhno terminaalkeenana waa kan ardaygeena koobaad waa maxamed da-diisuna waa maxay waa 20 ardaygeena labaad waa xamda da-deeduna waa maxay waa 19 habka sidana haddaynu qorno waxaan idhi waxaan samaysanay class kadibna classkeenu wuxuu leeyahay constructor sidoo kale wuxuu leeyahay objective oo laba objective hadda inoo diiwaangashan laba arday ayaa classkeena inoo dhigta xogteeniina habkan ayaynu usoo print garaynay ama aynu usoo daabacnay intaa haddayn garanay mar labaad waxaan odhan karnaa classkayagu wuxuu qaadan karaa propertieska kale uu inoo qaadan karo waxaa ka mid ah inaynu samayn karno function xogteenna soo celinaya marka si aynu function labaad u samayno waxaan idhi labada function bay siimi doonaa function baad noo samayn doontaa waxaanad odhan doontaa isagu waa printer waa daabice daabiciheenan wuxuu soo daabici doonaa self waxaa ku jira maxay isaga gudihiisa wan kadibna waxaan idhi print waxaad noo soo daabici doontaa fariin sidan ah maynee magacaygu wuxuu noqon doonaa wuxuu noqonayaa waxaa ku jira variableka la yidhaha maxay name marka variableka si aynu sheegno waxaan ka horreysiin doonaa this kadibna waxaan sheegi doonaa maxay this haddayn sheegno waxaanu sii sheegi karaynaa shaygeennan constructorkiisa marka this halkan sorry waa python bayn joognaa
self baynu odhan doonaa kadibna waxaan u baahanay waxaa ku jira maxay self dot name sidoo kale waxaan sii sheegi karaa xogtiisa karaa comma and I am baan odhan karaa and I am waxaan ahay waxaa ku jira self markaan joogno gaar ahaan maxay waxaa la yidhaahdo maxay age markaa 20 buu soo saari doonaa ama 21 ama age-kan ku shubana kadibna saynu qoraal usii raacin waxaan odhan jirnay waxaa jira intaasi oo sano years old baan ahay marka haddii imika inoo soo saaro 20 inoo soo saaro wuxuu noqon doonaa my name is hebel and I am 20 years ama da'da halkan ku jirta old baan ahay marka functionkani wuxuu inoo qabanayaa waa printer isagu waa daabace wuxuunbuu soo daabacayaa intan haddayn samayno objective ay samaysan jirnayo objective saynu samayno waxaan odhan jirnay xagga ugu horeysaan ku noqonaya leadka ugu horeeya marka la sinaado classkayga ayaan odhan doonaa waxaad ii samaysaa objective 1 objective 1 kayga tusaale ahaan student baanu la baxay studentkaygu wuxuu ku biiri doonaa baan leeyahay classkayga loo yaqaano maxay morning buu ku biirayaa morning markuu ku biiro mar kale waxaan sheegi doonaa xogtiisa student baa nidhi studentgeennuna wuxuu ku biirayaa classka loo yaqaano morning ayuu inoogu biirayaa kadibna halkan xogtiisaan ku sheegaynaayo waxaan leenahay tusaale ahaan ardayga magaciisa waxaad tidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa muuna sample age-kan waxaan odhanaynaa 19 intan markaan samayno functionka wax daabacaya hadda waxaa la yidhaahdaa maxay printer soo saamahe objectigeennana maxaa la yidhahdaa student kadibna waxaynu yeedhi doonaa objectigeena la yidhaahdo student kadibna waxaan u baahanay bayn leenahay functionka la yidhaahdo maxay printer ayaad noogu yeedhisaa hadda haddii aynu intan u yeedhno wuxuu inoo soo celinayaa xogta ku jirta maxay functionkeena printer oo noqonaysa in xogteennii laynoo soo daabaco clear baynu nidhi mar kale kadibna waxaan nidhi noo soo daabac wuxuu soo saaray my name is Mona and I'm 19 years old buu soo saaray marka xogteennii waxaa hadda soo daabacaya shaqadii daabacaadda qabanaya printer ayaa wax daabacaya functionkeena sare waxaan odhan jirnaa waa constructive kana waa destructive baynu odhan jirnaa fariimihii ama waxaynu dhiibnay ayuu soo bandhigayaa halkan waxaynu ku samaysanaa maxay objectiveskeenii kala duwanaa ayaynu ku samaysan karnaayo student 1 bayn samaynay kadibna waxaan nidhi xamde ka soo qaad da'dana sample waxaan nidhi waxa weeye 20 haddii xamdaan soo daabacayo iyadana waxaan odhan doonaa functionkeedana aanu yeedhi doonaa waxaan odhan doonaa student 1 way kadibna waxaa lasoo daabacayaa functionka la yidhaahdo printer markaa haddayn soo daabacno waxaan haysanaa laba arday oo kala duwan arday waa muuna ardayga kale waxa weeye xamde weeye marka kan habkan haddaynu isticmaalno waxaan samaysanay ama shaqadan aynu qabanay wax kale maahe waxaan samaysanay kow class aynu nidhi morning baa la yidhaahdaa classkeenu wuxuu leeyahay hal constructor waa dhise constructor buu leeyahay functionkana wuxuu noqon doonaa functionkii xogta soo bandhigayay marka isagu waa printer waa daabice fariintuunbuu inoo soo bandhigaa ama xogtii soo gelino ayuu soo bandhigi doonaa kan waxaynu odhan doonaa ama halkan waxaa ku jira waa objectives halkaa waxaa ku qoran ee ka hooseeya intaasi waxay noqonayaan objectiveskayga kan waxaan leenahay waa functionkeennii koowaad aynu samaynayno maxay calling baynu odhan jirnay waa inaynu u yeedhino functionkeena marka functionkeenu hadda wuxuu soo celinayaa fariimaheennan meesha ku jira ayuu inoo soo bandhigayaa intaan haddayn ka gudubno mar labaad waxaan aragnay intaan haddayn ka gudubno mar kale waxaan aragnay in classkeena aynu samayn karno in class kale uu soo dhaxli karo class kale haddii uu dhaxli karayo oo functionkeena aanu waxba soo celinayn ama tusaale ahaan oo kale functionkeena inayn doonayno keliya ta xogtan inuu noo hayo laakiin aynu rabno in samaysano cid labaad oo class labaad aynu dhaxlo halkan waxaan odhan doonaa waxaad noo samaysaa classkayga waxaad u bixisaa tusaale ahaan oo kale student-igu bixi student-gaygu wuxuu dhexli doonaa classka la yidhaahdo maxay morning buu dhexlayaa kadibna gudaha morning-kayga markaan soo imaado waxaan odhan doonaa waxaad u samaysaa constructor iigu samee inidkayga markaan sheego ama constructorkeena waxaan leenahay wuxuu soo celinayaa kow waxa gudihiisa mar labaad wuxuu soo celin doonaa name mar saddexaad wuxuu soo celin doonaa age mar saddexaadna wuxuu soo celin doonaa waxaa noogu jira phone haddaynu arkayno classkeena sare phone ma laha laakiin kani muxuu leeyahay phone ayuu noo leeyahay si aynu u sheegno in classkani class dhexlayo waxaan nidhi laba option baynu haysanaa kow inaynu sheegno classkeenii sare magaciisii kadibna aynu idhaahno waxaan uga baahannahay functionkiisa la yidhaha maxay init baynu u baahanay ama constructorkiisa wuxuu soo celin jiray kow
celinayay mar labaadna wuxuu soo celin jiray name mar kalena wuxuu soo celin jiray age ayuu soo celinayay intan markaynu idhaahno constructorka laba dhibcood bay inooga dambeyn jireen soo saamahayn laakiin kan maadaamayn wax soo dhaxalnay uma baahnin inaynu dhibco u samayno sidoo kale structure ahaan haddaynu koodhkeena eegno functionkeenan dhif la yidhaahdo iyo morning ma sina morning waxay ku guda jirtaa maxay functionkeenan kale ama constructorka student la yidhaahdo ay ku guda jirtaa kadibna waxaan leenahay waxaad noo samayn doontaa this self form waxa ku jira wuxuu noo leekaan doonaa waxaa noogu jira maxay phone ayuu noo leekaanayaa intan markaan samaynay waxaanu samayn jirnay function wax daabacaya soo saama kadibna dhif bay nidhi waxaad noo soo daabici doontaa functionkeena waxaan nidhi waa printer waa daabice printerkeena wuxuu soo celin jiray self waxa isaga ku jira kadibna waxaan leenahay print waxaad noo soo daabici doontaa fariin sidana waxaad noo soo daabacdaa korta kow self dot name noo soo daabac mar labaadna waxaan leenahay self waxaad noo soo daabici doontaa waxaa noogu jira age-ka mar saddexaadna waxaan leenahay waxaad noo soo daabici doontaa self marka joogna waxaa noogu jira maxay phone-ka marka labadan baaraamitir ee sare name iyo age waxay ka iman doonaan xagga sare laakiin phone-ka wuxuu ka imanayaa maxay kaygan ayaa gooni u leh oo iska leh xogtan oo isticmaalaya intan markay samayno waxaan odhan jirnay waxaan u baahannahay objectigeena sideen u samayno waxaan nidhi b1 noo samee tusaale ahaan b1 teenan ama person 1 keenan waxaan nidhi wuxuu ku biiri doonaa classkeena la yidhaha maxay student ayuu ku biiri doonaa studentigeena kadibna waxaan nidhi xogtiisa waxaad tidhaahdaa ardaygaygu waa maxamed agekiisu waa 20 kiisuna waxa weeye 1 2 3 4 5 kadibna sideen usoo daabacna waxaan odhan jirnay waxaad noo igu yeedhi doontaa b1 gaar ahaan maxay functionka wax daabacaya maxaa la yidhahdaa waxaa la yidhaha maxay printer intan haddaynu yeedhno idhaahno noo eeg control sf control j let's check markaa waxay noo soo saaray maxay maxamed 20 iyo maxay 1 2 3 4 5 6 marka classkeena wuxuu dhaxlayaa classkeena la yiraahdo student wuxuu dhaxlayaa classkeena la yiraahdo maxay morning ayuu dhaxlayaa habka sidana waxaan nidhi waxa la yiraahdaa inheritance waa class dhaxlaya maxay class kale ayaynu naqaanay waxaan nidhi mararka qaarkood waxaan isticmaali karnaa method kale la yiraahdo super marka